بسم الله الرحمن الرحيم waxaan mahad celinayaa warbaahinta qaranka saakan uu soo booqday xafiiska xarunta xooga dalka Soomaaliyeed si aan uga warbixino howlgallada ciidamada qalabka sida ay ka wadaan walka laga xoreynayo nimanka nabadiidka waxaan ka rabaa inaan uga mahad celiyo halka ciidamadaasi guusha ay soo hooyeen ummadda Soomaaliyeed la socodsiyo si aad ka warqabtaanba muddo waxaa socday qabanqaabo tababar howlgelin isu duwid ciidamada qalabka sida waxaanu ku guuleysanay in ay ciidamada Soomaaliya dib u soo kabtaan wadadii loo mari lahaa inaan marka hore jeexno taasoo tan ugu horeysa ay tahay waxa loo yaqaan isdhexgalka ama integrationka ciidamada gobolada kala duwan inta laga keeno meel isugu keeno isbartaan isaaminaan isku wada tababar qaataan kadibna loo diyaariyo inay wada hawl galaan oo la diriraan iyagoo magaca Soomaali oo gobol walba ka yimi inay la diriraan cadawga ummadda Soomaaliyeed waxaanu qorsheynay oo sameynay inaanu ciidanka Soomaaliyeed u sameyno habraac lagula xisaabtamo askari walba xeraduu joogo mas'uuliyadiisa cidda u madaxda ah sidaas waxa loo sameeyay waxa loo yaqaan biometric oo ah sarkaal walba in laga qaado daatadiisa marka laga buuxiyo in haddana askari walba laga qaado fartaas oo meel allaale meeshuu tago u noqonaysa nambarkiisa iyo fartiisu inay islahaadaan oo markaa lagula xisaabtami karo askariga meeshuu joogo waxaanu sameynay askariga account isaga u gaara oo meeshuu rabo dalka bangiyadiisa uu ka furto hadhowna lacagtiisa ay ugu soo dhacdaa bil walba bangiga iyo accountkiisa bishu markay 30 tahay waxa lagu guuleystay in ay bil walba 30keeda ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed qof walba mushaharkiisa uu helo ciidan aad tira badan qof iyo laba ama account ka khaldan yahay ama fartu ay qaldan waa dhici kartaa waxaan ka hadlayaa boqolkiiba 98 inay mushaharkooda helaan bisha kowdeeda markay tahay bangigoodana ugu soo dhacaan waxaanu sameynay sanadkan ee ugu horeysay oo leyli saraakiil ama wixii loo yaqaan aliyeva officiale dalkan ku tababarta oo muddo 2 sano dalka gudihiisa aan ka bixin oo isagoo sarkaal kuliyadii inta ka soo baxay saraakiil xidiglayaal noqdeen isla markaana aanu u dirnay takhasusaad kala duwan u diyaarinay oo hadda aadayaan waxaasoo dhan waxaa loo sameynayay in dib loo soo kabo loo soo dhisto ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed si uu u yimaado mustawihii loo baahnaa markii inta la dhisay waxa aanu habeynay qorshe dagaal oo ku wajahan meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan kuwan cadawga Soomaaliyeed horumarkooda diidan cadawgu u soo dirsaday hooyooyinkood dilaya aabayaashood dilaya walaalahood dilaya cidna aan dhaafaynin si markaa howlgalladaas aan ugu guuleysano qorshaan u sameynay saad ka warqabtaan dhowr meelood oo sabiid iyo caanoole ay ka mid yihiin operation ku horeeya lagu qaaday waxaa ku xigay bariire waxaa ku xigay ceel saliid shalayna ciidamadu waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan awdheegle oo magaalo weyna xarunna u ahayd nimanka cadowga waxaan halkaa hambalyo uga dirayaa dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan
ciidamada ku guuleystay shalayto inay cadowga ka saaraan meelihii ay ku dhuumaaleysanayeen dalkoodana ka xoreeyey wiilasha yaryar ee u soo labistay ee roobka ugu da-ay ee u lugeeyey inay ka saaraan cadowga in dadka Soomaalidu ay ogaato ummadda Soomaaliyeed inay weli jirto dad ay wadaniyadii ku dambayso qadimay dhiigooda iyo naftooda dagaalkaas inay ku xareeyaan si aan dib dambe hooyooyin iyo aabooyin iyo arday iskuul u socda iyo wadaad masaajid ka soo baxa aan loo dilin waxaad la socotaan in ciidamada qaybahoodu kala duwan dagaalkani uusan ka socon hal meel kaliya ee uu ka socdo dhammaan gobolada Jubbaland ay ka socdaan waxay ka socdaan Bay iyo Bakool waxay ka socdaan Shabeellaha Hoose waxay ka socdaan Shabeellaha Dhexe waxay ka socdaan Hiiraan waxay ka socdaan Galmudug dhammaan ma aha meelaha kaliya ee meel walba waxa ka socda dagaal lagaga horeynayo nimanka ummadda Soomaaliyeed hortaagan waxaan rabaa Soomaalida idageysanaysa dalka gudihiisa dibadiisa inaan u sheego dalkani wuxuu leeyahay cadow badan cadowgaasi wuxuu ka faa'iideystay intii dagaalkii sokeeyna dhex maray waxay ka faa'iideysteen kala maqnaanshahaani welina waa nagu maqan yihiin waxaan rabnaa marka dadka dibadda jooga iyo gudaha joogaba inay la gacan siiyaan ka warqabaan afka uga heeliyaan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada iyo dowladnimada ay maanta hana qaaday inay afka uga heeliyaan waxaan jeclaan lahaa inaan mar labaad u hambaliyeeyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadka taageeray dadka degan aaga dagaaladu ka dhacay waxaan jeclaan lahaa in la soo booqdo oo beryahan waaba la tegi doonaayo loo geeyo oo la soo eego oo lala socdo Ilaahay subxaanahu wa tacaala guusha uu siiyey ciidankeena intaasaan rabay maanta inaan idinla wadaago muxuu ahaa ciidamadani waxaa guul ah ilaahayna looga mahadnaqayaa qutubyada dagaalka galay muddo ka hor ayaan waxaa la sameeyay tabo iyo takhtiidaad aad looga fekeray maskax badan la geliyey juhdi badan la geliyey waanu naqaanaa cadowgu siduu meesha u fadhiyey qaybaha ay kala hayeen ninkii yaqaana Awdheegle waxa ku yaala bridge weyn bridge-kaasi wuxuu isku xiraa magaalada labadeeda dhinac cadowgu wuxuu isku dayay inuu bridge-ka markii ciidamadu soo galaan ay qarxiyaan xeelad iyo tab loogu talagalay annagoo isticmaalayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku guuleysteen bridge-kii oo ay waxba ka dumin waxna yeelin inay gacanta ku dhigaan cadowgiina ka saaraan taas oo guul weyna maxaa yeelay waad ogtihiin qiimaha ay ku fadhiyaan muxuu ah buudooyinku dadka gobolka degan oo beeraleyda ah oo xoololeyda ah ee webiga ku nool kuwa doonaya inay ka dumiyaan kuwii ka saaray waxaan u maleynayaa Soomaalida inay abaal ku leeyihiin loona abaal gudi doono mar haddii dagaal dhaco oo dagaalku faraha la iska galo walow annaku aanan jeclayn qof Soomaali ah inuu xabadda gacanteena oo ku dhinto aanu aad uga xunnahay haddana marka howlgal la galo oo dagaal la galo dagaalku waxaad ku talagelaysaa khasaaro iyo faa'iido annaka hadda wax khasaaro ah haba yaraatee hal askarina Allah ka dhigay oo waxyaalo naga soo gaadhay ma jirto muxuu ahaa weli gacanta lagu hayaa 24 saac kama soo wareegin waxaa la baarayaa dhulkay waxgeliyeen waxaa la eryanayaa iyaga inay meesha ku soo noqon marka hawshaas hadda gacanta lagula jiraa waxaa dhawaan waa la ogaan doonaa waxaa iyaduna jirta ciidamadu meelaha ay qabteen
bariirka ka mid tahay sabiib iyo caanoole ka mid tahay ceelsaliini ka mid tahay awdheegla hadda ka mid yahay meel kastoo ciidamadu qabtaan ciidamadu waxay daryeelaan gacan qabtaan guryo u dhisaan difaac u sameeyaan xoolihii ku burburi u celiyaan dadkii shacabka ahaa ee meesha loogu yimi waxaa hadda muuqatay oon anigu indhahana kusoo aragnay ceelsaliini iyo muxuu ahaa caanoole iyo haddaad tagtaan waxaa arkaysaan dhul dhan oo ciidamadu dhiseen oo ay u dhiseen dadkii kuwaasi ay ka burburiyeen ay u dhiseen oo muxuu ahaa haddaad aragto muxuu ahaa aada la yaabi doonto waxay qaybiyaan daawooyin waxay qaybiyaan raashinka ay haystaan maadaama dadka aan loo ogolayn inay raashin hore u qaataan ciidamada ayaa raashinka iyagana muxuu ahaa ay wataan bay la qaybiyaan daawaday u qaybiyaan waana arki doontaan hay-adaha dowladda oo dawliga ah oo dhan baa taga ma aha ciidamada keliya ah wasaaradda caafimaadka wasaaradda arrimaha gudaha maxaa yeelay ciidamada meesha markay qabtaan oo cadowga ka saaraan waxaan noo qorshaysan inaanu dowladda uga tagno oo boliis keento oo degmo ka dhigto oo tuulo ka dhigto oo wasaaradda arrimaha gudaha timaado oo caafimaad la keeno oo iskuulaadkii laga dhiso ciidamadu wuxuu uga tagaa meesha boliis iyo ciidamadii tegi lahaa iyo wixii nidaamkii dawliga ahaa looga dhiso maxaa yeelay annagu horaanu usii soconnaa waxaanu sii rabnaa inaanu sii qabsanno oo sii qabanno dhulkaa ilaa aanu ka xoreyno inta u dambeysa dad hore u soconayaan marka annagu waan qabanaa dowladduna waa naga daba timaada waa nagala wareegtaa saasaynu ku soconaysaa insha allahu tacaala